maamulka Puntland ayaa si rasmi ah maanta wuxuu la wareegay kontaroolka dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo oo ay Puntland maamusho oo ciidan beeleed in muddo ah gacanta ku hayeen wixii ka dambeeyay dagaalkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo bishii la soo dhaafay kulan ballaaran oo ka dhacay xaafadda Gorsoor ee magaalada Gaalkacyo oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug saraakiisha ciidanka booliska iyo kuwa daraawiishta gobolka xubno ka tirsan maamulka degmada hoose ee magaalada Gaalkacyo odayaasha iyo waxgaradka beesha leelkase haween iyo dhalinyaro ayaa si rasmi ah beesha leelkase Puntland waxay ugu wareejiyeen kontaroolka dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo dawladdu sidoo kale waxay la wareegtay 22 askari oo kamid ahaa dhalinyaradii beesha ee kontaroolka gacanta ku haysay kuwaas oo mas'uuliyiinta dawladda Puntland ay sheegeen inay ku kala dari doonaan ciidamada ammaanka gobolka gaar ahaan ilaalada kontaroolka si ay uga qayb qaataan dadaalka lagu doonayo in dib loogu soo celiyo nabadgelyada gobolka gaar ahaan magaalada Gaalkacyo Daahir Maxamuud Muuse oo ka hadlay goobta ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalada nabdeed ee wali ka soconaya magaalada Gaalkacyo wuxuu sidoo kalena sheegay inay ku qanacsan yihiin inay dawladda ku wareejiyaan kontaroolka iyo customkii dhankan koonfureed dawlad goboleedka Puntland ay xukumi jirtay oo maalmihii wax dhaceen xirnaa maanta waxa ku sugan maamulkii shacabkii waxgaradkii culimo awdiinkii dumarkii dhamaantood ayagoo ay ka muuqato in daaha laga furayo intii yarayd oo ahayd xanibkii oo wixii yaray oo dhacay oo la kala xanimay inaysan jirinin dadkan dhibaato ay isku qabaan balse jiray wax yar oo kala istaagay waxyaalihii yimid beeshii gacanta ku haysay waxay ku soo wareejiyeen maamulka asagii oo aan wax shuruudo ku xirnayn iyadoo ay ahayd qodobadii heshiiska ee culimo awdiinku soo saareen ismadii guddiga ahaa dhanka kale mas'uuliyiinta dawladda Puntland oo ay ku jireen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Mudug Farxaan Cali Xirsi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Mudug taliyayaasha ciidanka booliska iyo daraawiishta gobolka ayaa iyaguna soo dhaweeyay inay dawladdu dib ugu noqoto kontaroolka koonfureed iyo baro kale oo muhiim ah Axmed Muuse Nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Mudug oo afka dawladda Puntland iyo kan maamulka gobolka ku hadlayay ayaa sheegay in loo baahan yahay in dib loo soo celiyo shaqadii kontaroolka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo sidoo kalena ammaanka laga shaqeeyo laakiin dadka waayahan talada ka dhuumata waydiin mahad celinaynaa 100% annagu maamul ahaan waxaanu ballan qaadaynaa wixii hadda ka dambeeya inaanu islaax iyo midnimo iyo cadaalad iyo wadajir ku dadaalno dagaalkaana wuxuuna qabsaday annagoo cusub xogtiisa iyo waa sheekooyin naga horreeyay bay ahaayeen haddii ilaahay idma wixii ila daraa oo magaalada soo mara intaan adduunka noolaa wixii ila xumaayo ay soo maray dagaalka Gaalkacyo arrintan ayaa ka dambeysay dadaalo nabad lagu raadinayay kuwaas oo ay wadeen ismada deegaanada Puntland wixii ka dambeeyay dagaalkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo walow ay jireen qodobo badan oo la isku dhaafi waayay haddana wareejinta kontaroolka ku yaala dhanka koonfureed ee Puntland ee magaalada Gaalkacyo wuxuu noqonayaa tallaabo muhiim ah iyo bilow wanaagsan Cabdiladiif Cabdiraxmaan Warsame